Somaliland oo u bandhigtay Mareykanka in ay siinayso madaar iyo deked caalami ah kagana bedelanayso aqoonsi ay dal ku noqonayso. Maqaalkan oo lagu daabacay wargeyska caalamiga ah ee The Wall Street Journal ayaa lagu shaaciyay in Somaliland oo ah bogcad nabdoon oo geeska ka dhacda Soomaaliyada qasku hareeyay ay u soo bandhigtay dawladda Mareykanka in ay isticmaalaan madaarka iyo dekeda caalamiga ah ee Berbera. Beddelkeedana uu Mareykanku aqoonsi rasmi ah siiyo Somaliland ayaa doonaysa inay ka faa'iideysato walaaca soo taraya ee Mareykanku ka qabo isballaarinta Shiinaha ee Afrika. Waxa uu qorsheynaysaa in bisha Maarch uu madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu safar ku tago Mareykanka kaasi oo la rajaynayo inuu u kuurgelid ku sameeyo danaha Mareykanka ee isticmaalka dekeda Berbera oo ah magaalo dhacda gacanka cadmeed oo ah meel istiraatiiji ah ayaa wargeyska lagu sheegay maqaalkiisan. wargeysku waxa uu soo xigtay waraysi uu bixiyay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Ciise Kayd isla markaana ku cadeeyay mowqifka madaxweynaha ee ku aadan sida uu soo dhaweynayay in Mareykanka ay Somaliland siiso joogitaan rasmi ah. Waxa uu wasiirku waraysigaasi raaciyay in loo baahan yahay in Mareykanku uu degdeg uga falceliyo arrintaasi. Sidoo kalena waxa maqaalka lagu soo hadal qaaday walaaca soo taraya ee dawladda Mareykanku ka qabto dawladda ay taageerada siiso ee Soomaaliya taasoo dib u dhac badan ku yimaadeen doorashooyinkii mudaysnaa taasoo ay hareeyeen muran iyo isturtuur badan. Kadib 20 sano oo taageero military uu Mareykanku siiyo Soomaaliya waxa fashilmay in laga takhaluso Al-Shabaab. Wargeysku waxa uu soo xigtay xildhibaan sare oo ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee aqalka Koongareeska ee Mareykanka, xildhibaan Jim Rich, kaasi oo sheegay xasilooni darrida sii jiitamaysa ee geeska Afrika iyo tartanka ay wadamada waaweyn ugu jiraan kheyraadka iyo saameynta wadamada kale ay ka dhigayso wada shaqaynta dalalka ay mabaadi'du ka dhaxayso Mareykanka sida Somaliland mid muhiim ah marka la eegayo nabadda, dimuqraadiyadda iyo badhaadhaha. Saraakiil badan oo Mareykan ah ayaan la dhacsanayn hogaaminta madaxweyne Farmaajo oo isku dayaya inuu dib u riixo doorashada isla markaana hore isugu dayay muddo kororsi ayaa lagu yidhi maqaalkan wargeyska Wall Street Journal lagu daabacay. Sidoo kalena waxa la tibaaxay in Mareykanka ay ka joogaan xilligan geeska Afrika tiro kooban oo ciidamada kuwaasi oo ka sugan saldhigga uu ku leeyahay waddanka Djibouti. Hore waxa uu Mareykanku ciidamo uga baxeen Soomaaliya oo ay ka joogeen saldhigga Balidogle. Arrinta ayaa ku soo beegmaysa xilli ay Afrika ku hirdamayaan quwadaha shisheeye iyadoo ay soo baxday hadalhaynta ah in Shiinuhu saldhig labaad uu ka samaysanayo waddanka Equatorial Guinea ee badweynta Atlantika. Arrintaasi oo Mareykanku u arko khatar ku soo fool leh. dhinaca kalena waxa la ogsoon yahay in wufuud ka socota Mareykanku ay dhawaan socdaal ku yimaadeen Somaliland.